kulanti habboon daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka aad ku maqli doontaan waxaana ka mid ah tirada weerarada diyaaradaha droniska ay geysteen ee dalka Ruushka ayaa la sheegayaa in ay sare u kaceen iyo khasaare ka dhashay duqeyn ay Ukraine ka geysatay goob shidaal oo ku taala Ruushka ayaa Ukraine ku weeraray in ka badan 6,000 oo diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo drones ah bishii July taasi oo noqotay tii ugu badneed tan iyo markii uu bilowday duulaanka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine sanadkii 2022 sida ay wariyeen wakaaladda wararka AFP iyo warbaahinta Kiev Independent. Weerarada droniska loo adeegsaday ayaa waxa ku nafwaayay dad badan waxaana dhaawaceen tiro kale waxa kale oo ay burburiyeen bartilmaameedyo rayid sida guryo goobaha xanaanada carruurta iyo gawaarida gurmadka degdega sida laga soo xigtay warbixin ay faafisay AFP. Ciidanka cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu ku weeraray 6,297 drones oo nooca masaafada dheer ku socda dalka Ukraine bishii Luulyo aynu ka soo gudubnay taasi oo sare u qaaday tirada weerarada boqolkiiba 16 marka loo eego bishii June. Kiev Independent waxay sheegtay in Ruushka uu adeegsaday 6,129 drones oo nooca shahiid taasi oo 14 jeer ka badan tirada duqeymaha ay fulisay isla bishan sanadkii hore markaasi oo ay hayeen kaliya 423. Afhayeenka ciidanka cirka ee Ukraine ayaa sheegay in tirada dhabta ah ee weerarada droniska laga yaabo in ay ka badan yihiin inta imika la qiyaasay. Hal habeen oo qura gaar ahaan 9kii bishii hore ee Luulyo Ruushka ayaa ilaa 741 drones iyo weerar kale u adeegsaday gantaalo ka fuliyay galbeedka Ukraine taasi oo ka badan dhammaan tirada bisha Luulyo weerarada la geystay sanadkii hore oo dhan. Weerarka Luulyo 9keedii dhacay ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 8 qof gaar ahaan gobolka Samyonetsk iyo gobolka Kherson inkastoo ciidamada Ukraine ay rideen dhammaan droniskaasi marka laga reebo 10 kaliya. Weerarkan waxa uu dhacay maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in maamulkiisa uu gacan ka geysan doono dirista hub difaac oo dheeraad ah oo uu ku taakuleen doono dalka Ukraine. Tani waxay timid iyadoo Pentagon-ka uu dhawaan shaaciyay inuu hakiyay qaybo ka mid ah taakuleenta taageerada military ee hubka uu siiyo Ukraine sabab la xiriira kaydka oo aad hoos u dhacay. Trump waxa uu yiri waa in ay helaan awood ay isku difaacaan waxaana lagu heshiiyay in Europe ay maalgeliso nidaamyada difaaca cirka oo laga keeni doono shirkadda hubka samaysa ee Mareykanka ee Raytheon. Weerarada Ruushka ee droniska iyo gantaalada la socday ayaa socday ilaa dhamaadka bishii Luulyo waxaana weerar ka dhacay caasimadda Kiev Luulyo 31keedii lagu dilay ugu yaraan 31 qof oo ay ku jiraan 5 carruur ah halka 159 kalena la dhaawacay. Madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay in Ruushka uu adeegsaday in ka badan 300 oo drones iyo 8 gantaal sida laga soo xigtay AFP. Ruushka ayaa sidoo kale fuliyay duqeymo 198 gantaal bishii Luulyo taasi oo ka dhigaysa bishii labaad ee ugu badneed sanadkan marka laga reebo bishii June ee aynu ka soo gudubnay. Tirada droniska uu Ruushka u adeegsaday gaar ahaan bishii June uu adeegsaday waxay ahayd 5,337 taasi oo ahayd tii labaad ee ugu badneed kadib Luulyo. June 9keedii oo kaliya Ruushka waxa uu adeegsaday qiyaastii 479 drones iyadoo taasi dhacday maalmo uun ka hor inta uusan bilaaban iswadaarsiga maxaabiista oo ay ku heshiiyeen Ukraine iyo Ruushka gudaha magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Inkastoo wadahadallada dhanka nabadda ay ka socdaan dalka Turkiga haddana weli lama gaarin heshiis xabad joojin oo rasmi ah iyadoo Trump uu ku hanjabay inuu cunaqabateyn cusub uu saari doono dalka Ruushka iyo dalalka kale ee wax ka iibsada. Ruushka ayaa tan iyo duulaankii 2022 ka dhacay dalkaasi ee u dhaxeeyay ama dhaxmaray iyaga iyo sidoo kale Ukraine wax ka bedelay qaababka diyaaradaha droniska sida ay ugu duulaan dhowr kilomitir dhulka sare gaar ahaan dhulka hoose ka sareeya taasi oo ka dhigaysa mid adag in lagu soo rido qoryaha culculus ee caadiga. Taasi waxay Ukraine ku qasabtay in ay aad ugu tiirsanaato nidaamyada difaaca cirka ee Mareykanka oo ay ku jiraan nidaamka Patriot oo ay Europe maalgelinayso. Ruushka waxa uu dirayaa drones kala duwan in ka badan kala bar waxay wataan walxo qarxo halka kuwa kale ay yihiin qalab kale oo gantaalo la rabo in lagu rido gantaalada difaaca Ukraine iyo kuwa sahminta oo dabagala meesha ay ku sugan yihiin difaaca cirka ee Ukraine. Weerarada culus ee droniska ayaa sidoo kale u adeegsata si loo buuxiyo nidaamyada difaaca marka gantaalada dhabta la rido. Ruushka waxa uu ka soo iibsaday Iran laba nooc oo drones ah kuwa culus
kuwaasi oo Iran lagu markaasi ay iyagu dhamaadkii sanadkii 2024 ay ugu yeereen saaxiibo muhiim ah. isla wararka Ukraine intaynu ka bixin dhinaca kale dawladda Ukraine waxa ay xidhay mas'uuliyiin dhowr qof gaaraya oo lala xiriirinayo musuqmaasuq baaxad weyn oo ka dhacay qaybta difaaca dalkaasi wax yar kadib markii bartilmaameedka Ukraine uu dib u siiyay madaxbanaanida hay'adaha ugu weyn ee baara musuqmaasuqa. hay'adda qaranka la dagaalanka musuqmaasuqa ee NAPU iyo xafiiska dacwadoogaha gaarka ee ka hortagga musuqmaasuqa ee SAPO ayaa sabtidii si wadajir ah u shaaciyay in 4 qof lagu xidhay arrintaasi iyadoo eedemuhu ay la xiriireen iibsashada diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droniska iyo nidaamyada kala duwan ee isgaarsiinta. hay'adahan waxay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen xildhibaan xilka haya oo maxil haya iyo 2 mas'uul oo maxalli ah iyo tiraan la cayimin oo ka tirsan ilaalada qaranka National Guard-ka loo yaqaano kuwa oo laaluush qaadanaya magacyada dadkan la tuhunsan yahay lama shaacinin sida lagu qoray bayaanka warbixintaasi. si kastaba haatee arrintan waxay timid iyadoo madaxweynaha Ukraine Zelensky lagu eedeeyay bishii hore inuu isku dayo inuu hoos geeyo hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa xafiiska dacwadoogaha guud iyo hay'ado kale taasi oo dhalisay carad dadweyne iyo mudaharaadyo kuwii ugu horeeyay tan iyo markii uu Ruushka weeraray Ukraine 2022. Ukraine oo leh awood ballaaran oo dagaal ayaa markii hore sheegtay in uu doonayo in uu gacanta ku dhigo hay'adahaasi isagoo ku eedeeyay inay yihiin kuwa liita oo saameyn Ruush ay ku jirto balse markaasi dadku si weyn uga dheedhiyeen ayuu Zelensky sheegay in uu maqlay codka shacabka wuxuuna baarlamaanka horgeeyay sharci dib ugu soo celinaya madaxbanaanidii ay lahaayeen hay'adahaasi kaasi oo la ansixiyay Khamiistii. dalalka Yurub oo taageera Ukraine ayaa si weyn u amaanay go'aanka Zelensky iyagoo horey uga digay in la wiiqo awoodaha hay'adaha ka hortagga musuqmaasuqa ay leeyihiin taasi oo halis gelin karta yoolka Ukraine ee ku biirista midowga Yurub. ugu dambeyn isla wararka Ruushka in ka badan 120 debdemis ayaa ku howlan deminta dab xoogan oo ka dhacay baqaar shidaal oo ku yaala magaalada Sochi ee Ruushka sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi oo goor hore oo xadii saaka isagoo fariin ku daabacay baraha bulshada arrintaasi ka dhawaajiyay. warbaahinta dawladda Ruushka ee RIA ayaa warisay in dabka uu qabsaday haanta shidaalka oo qaadi karta 2,000 mitir oo markaasi isku wareega taasi iyadoo markaasi ay ku taalo gobolka Krasnodar ee xeebta badda madow halkaasi Sochi gaar ahaan Ruushka. wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in 93 diyaaradood oo drones oo Ukraine ay soo dirtay la burburiyay habeenkaasi taasi oo ay ku jiraan 60 drones oo lagu burburiyay biyaha badda madow 1 drone oo lagu qabtay gobolkaasi iyo kuwa kale oo lagu bartilmaameedsaday gobolo kala duwan. wasaaraddu ma ay sheegin tirada guud ee Ukraine ay soo dirtay kaliya waxay sheegtay inta la burburiyay. hay'adda duulista rayidka ee Ruushka ayaa si ku meel gaar ah u joojisay duulimaadyada garoonka Sochi si loo hubiyo badqabka hawada balse waxay sheegtay in duulimaadyada dib ay u bilowdeen axadii markaasi goor dambe. Reuters ma aysan faahfaahinin ama wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan aynu ka soo fulinay ama aynu ka soo xiganay ma aysan si buuxda u xaqiijinin si madax banaan wararkaasi mana jirin wax jawaab ah oo degdeg ah oo ka timid dhanka Ukraine. gudoomiyaha gobolkaasi waxa uu sheegay in weerarka droniska uu ka dhacay degmada Aldar ee magaalada Sochi taasi oo magaalo xeebeed caan ah oo martigelisay ciyaaraha Olimbikada ee jilalkii sanadii 2014. inkastoo weerarada noocan oo kale ay aad ugu yaryihiin Sochi, Ukraine waxa ay weerar badan ku qaaday gudaha Ruushka iyadoo beegsanaysa kaabayaal muhiim u ah dadaalada dagaal ee Moscow. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixinada wararka caalamka oo imika intaasi aynu ka soo diyaarinay. wixii ku soo kordho wararkaasi iyo warar kale halkan ayaad kala socon doontaan. waad mahadsantihiin. fadlan like gareeya muuqaalkan inoo subscribe gareeya channelkan haddii aad ku cusub tahayna subscribe-ta waa inoo muhiim ee inoo saar.